maxaa keeni kara inay xoogaystaan kow waxaa keeni kara baan leenahay dacwadan in loo qabto ilaahay dartii dadkana ilaahay loogu yeedhay aanad adigu isugu yeedhin dadka in ilaahay loogu yeedho inaad adigu isugu yeedhin ma waxaad rabtaa inaad atbaac yeelato dad badan oo ku raacsiisana uu hebel ku haya waxaad doontaba markaa magacaagu ahaada ama urur sheego ama kan sheego ama kan sheego mise waxaad rabtaa dadku inay rabbigii abuuray ku xidhmaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala raacaan asalku dadku waa inaynu ilaahay ugu yeedhno haddaynu rabno inay guulaysato sidaa awgeed baa ilahay wuxuu leey waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi baa la yidhi miman dacaa ila allah dadka meeshaad ugu yeedhaysaa ma aha gruubkaaga inay noqdaan iyo sidaad adigu fakeraysa inay fakeraan iyo saad wax u aragta inaad kuula arkaan iyo saad wax u qiimeynaysa waxaas waa masalo kale dadka waxa loogu yeedhayaa waxa weeyaan rabbigii abuurtay inay raacaan rabbigii abuurtay inay raacaan qul haadihi sabiilii adcuu ila allah nabigu muxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku yihi qul waxaad tidhaahdaa haadihi sabiilii adcuu ila allah ilaahay baan dadka ugu yeedhayaa dhe udcuu ilaa sabiili rabbik ilaahay jidkiisa dadka ugu yeedh jidka rabbi gaadhsiinaya dadka ugu yeedh waxay leenahay dacwadu waxay naajix noqon kartaa kow markay tahay dadka in ilaahay lagu xidho danta aad leedahay markay tahay ma aha inaad magac hesho inaad maamuus hesho inaad xoolo ku hesho inaad koox badan oo adiga kaa dambaysa heshid waxaasi maaha waxaa dhabtahay waxa weeyaan dadkan inaad rabbigood bartid ood rabbigood ku xidhin ka labaad waxay leenahay dacwadu waxay naajix noqon kartaa dadka waxaynu ugu yeedhaynaa hadduu inaga inaga muuqdo maxaan uga jeedaa dacwadu inta badan hadal maaha dadku marka dacwo laga hadlayo inta badan waxay moodaan muxaadaro iyo deris la dhigay inay tahay muxaadaro iyo deriska la dhigaa waa wax ka mid ah laakiin wax ka muhiimsan baa jira waxa ugu muhiimsane koowaad waxa weeyaan inaad adigu qudwa noqoto inuu diintu inay adiga kaa muuqato waxaan odhan karaa maanta caalamku wax la loolama islaam oo naflihi ma yaallo laakiin haddana maxaa hortaagan waxaa hortaagan muslimka dhaqan xumada muslimkaa hortaagan soomaalidu maxay idhahdaan riya hadday dib leeyihiin dabadooday ku qarsan lahay bay idhahdaan dee dadku markuu muslimka sidaa u ego wuxuu odhanayaa war hadday naf leedahay iyagaa naf yeelan lahaa socankaa ma aha haddaad tidhaahdo diinta haddaad qaadataan waa la liibaanaya adbaad xagga kale ka wareegayso waar khiyaamada naga daaweeyaan hadday liibaantay ma adigaa ka soo noqon lahaa idan waxaa hortaagan diintu inay socoto dacwada dhabtii waxa weeyaan adigu qof muslima noqotid adiga libaaskaagu maradaad xidhanaysaa inay maro muslimnimadaada tilmaamaysa noqoto adiga dhaqankaagu inuu dhaqan muslimo tilmaamaya noqdo adiga cibaadadaadu inay cibaado islaam tilmaamaysa inay noqoto sida awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamaya kitaab lama soo dirin oo malaa'ig laynoogu soo dhibo la yidhaha kitaabkaa akhrista ee waxaa la soo diray bashar rusushu bini aadam bay ahaayeen maxaa bini aadam looga dhigay inay noqdaan wax lagu dayan karo inay noqdaan diintiioo lagula hoos soconaysa ilaahay wuxuu qur-aan ku tilmaamay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana ilaahay rasuulkiisa waxaa idinku sugan ku dayasho fiican yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun wardadow maxaa ugu dhawaaqaysaan waxaydan idinba yeelaynin ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum dadka masamaha u sheegaysaan oo dabeetana waa maxay adiguna lafahagaad ilaabaysa saxwaadkeenna dambe waxa ku badan dadka kale unu muuqda isagu isuma muuqda hala iscafiye buu leeyahy isagu midba midbuu ku dhegan yahi islaamka ha lagu dhaqmo isaguba ku dhaqmi maayo kama muuqato run ha la sheego isagaa markuu doono been sheegaya
diinta daacad ha loo noqdo isagaan daacad u ahayn markuu doono. idan dhaqankaagu ayaa ka dhawaaq dheer hadalkaaga. dhaqankaagabaa ka dhawaaq dheer maxay? hadalkaaga. hadduu dhaqankeenu dhaqan muslim oo dhaban noqdo taasaa dacwo ku filan, iyadaa ah islaamnimada dhabta ah. soomaalidu waxay yidhahdaan ninkaad kabaa ka tolanayso kabiisa haleega, nin isba kabala kaba ii tol kuma qurux badna. idan markaynu leenahay dadka war diinta qaata waa liibaanaysaane, innaguna aan wixii sagsaagayno waxayna si fiican ugu dhaqmaynin, aday dhigaysaa mowducu tuhma, aday ku dhigaysaa waxaanaad sheegaysa inaad ka run sheegayso iyo inaad daacad ahayn. saa daraaddeed dadku ku dhegaysan maayaan, waxay kuu dhegaysan la'yiin waxa weeyaan tuhmad ay kaa qabaan. dadku waxay kuu dhegaysan la'yiin maxay? aday ku tuhunsan yihin. dacwada naajixa waxaa calaamad u ah bay culammadu yidhaahdaan qofkan diinta sheegaya inuu aakhiro ka doorbidaya adduunka. eraygaa u fiirso, qofkan raba inuu diinta sheego ee dadka diinta gaadhsiinaya aakhiro inuu ka doorbidayo adduunka. oo waa maxay? fii suurati shucaraa ilaahay ambiyo badan buu kaga warramaya. ambiyada waxa uu nebi waliba odhanaya wamaa as'alukum calayhi min ajr in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin. waxba idinkaga dooni maayo. dadku hadday u qaataan diinta inaad ku xoogsanayso, inaad dantaada ku fushanayso, te nin shaqaysanayaa lagu arkaya, nin mabaadi' wada lagu arki maayo. waxaa lagu arkayaa maxay? qof shaqaysanaya. haddii inta diinta sheegaysa ay noqoto mid jaamacad macallinka oo mushaahar ku qaadanaya, mid masaajid imaamka ah oo mushaahar ku qaadanaya, mid malcaamado dhigaya oo mushaahar ku qaadanaya, kama hadlayo mushaahar in lagu qaataa ma bannaanta iyo ma baabkaa kama hadlayo. dee ilan dadka baktiya odhan mayno haddaan cidbo wax siinaynin waa inay wax cunaanay. laakiin waxa aan ka hadlayaa tilmaamaya waxa weeyaan mee dadkii diintan intuu iska xilqaamo dadka u sheegi lahaa isagoo wixiisa haysta, isagoo aanay dadku u arkaynin inuu ku xoogsanayo. waayo haddii bulshadu ay kuu aragto diintan aada wadaa inay kaa tahay mansab raadin iyo xoolo raadin iyo xukum raadin iyo waxaan raadin, haddii lagu arko dee nin dad shaqadiisa wataa lagu arkaya, laguma arko qof mabaadi xambaarsan. ama haddii lagaa dareemo inaanad waxba ka rabin dadka, jeebkooda waxa ku jira inaad doonaynin, inay ku maamuusaan oo magac ku yeelaan oo hebelku yidhaahdaan oo fadhiga kaga kacan aad ka rabin, inay madax kaa dhigtaan aanad ka doon, waxaad ka rabtaa aanay jirin, kelimadaadu mid la maqlaabay noqonaysaa. hadba inta dadku tuhmadooda aad ka fog tahay buu warkaaguna yahay war dadku dhegaysanayaan. hadba inta tuhmada dadku ay kugu badan tahayna waxa yaraanaya in wax lagaa dhegaysto, in lagu arko qof mabda' xambaarsan inaad tahay baa yaraanaysaa. sida awgeed dadka diintan sheegaya waa inay noqdaan dad aakhiro iyo waxa ilaahay agtiisa yaalla kala muhiimsan yihiin dadka agtooda waxa yaalloo dhan. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam madiine markuu rabay inuu hijroodo waxa u yimi saxaabo reer madiine ah. bayca heshiis bay la galeen, baycat alcaqaba. waxa uu nebigu weydiisanaya calayhi salaatu wasalaam hadduu u soo hijroodo inay diintan u difaacayaan siday naftooda iyo maalkooda iyo ehelkooda u difaacaan, in loo dhimanayo. okay, su-aal bay markaa nebiga weydiiyeen, haddaanu sidaa yeello maxaanu leenay? haddaad noo timaadid oo aanu ku difaacno oo carab oo dhammi meel qudha nagaga soo wada jeesato oo aanu naf iyo maalba kugu difaacno, saanu carruurtayada iyo reeraha iyo xoolahayaga u difaacino kuu difaacno, maxaanu annaguna leenahay? u fiirsa nebigu muxuu ku yidhi marka? aniga dabadaybaa madax noqonaysaan miyuu ku yidhi? wasiiraan idinka dhigayaa ma yidhi? dowladda dambe ee islaamka ah baa wax ka helaysaan ma ku yidhi? maya. manfac dunawiya uma sheegin. walakum uljanna buu nebigu yidhi. sidaa haddaa yeeshaan jannaa helaysaan. macnaheedu waa maxay? qofka diintan raba inuu u diriro, inuu faafiyo, inuu hirgeliyo, inuu mabda'an xambaaraa
waxa uu raadinayaa waa inay janno noqotaa waxa uu raadinayaa waa inay janno noqotaa markaasi mabda'ani wuxuu noqonayaa mid dadku ay u arkaan inay dantooda ka warramayso ay qaataan laakiin marka ay u arkayaan in dantaadu adiga ku xidhan tahay oo adigu aada manfac ku haysato ama magac ku haysato ama adduun aad ku haysato ma badnaanayso in dadku wax kaa dhegaystaan saddex waxaynu leenahay ama afar dacwada naajixa waxaa asal u ah bay culammadu yidhaahdaan oo ka mid a dadkan ducaadii inay yihiin dad daakiriina dad ilaahay xuskiisa badiya dad ilaahay xuskiisa badiya oo waa zaadka ugu fiican ee uu qofku waddadaa u qaato nebi maxamed ilaahay muxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha almudathiru qum faandir warabbaka fakabir wahiyaabaka fatahir warujsa faagir waxaa la yidhi kan istuuduubayow kac oo dig qum faandir maxaa loogu xigsiiyey markaa warabbaka fakabir rabbigaa weyne cibaadayso yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil ilqur'aana tartiila inaa sanulqi calayka qowla haqiila war kan istuuduubayow baa ilaahay leeyahy kan isdadayow kac habeenkii in badan oo ka mida kac waayo oo qur-aanka akhriyo cibaadaysaa la yidhi waayo inaa sanulqi calayka qowla haqiila war culus baanu kuu dhiibaynaa baa ilaahay yidhi warkan culus waxaa xambaari kara qofka ilaahay si fiican ugu xidhan haddaan ku idhi adduunna ha qaadanin laguna tumayo ama lagaa soo horjeesanayo ama lagu cadaadinayo ama lagu caayo ama lagu dhibayo saad ugu adkaysanaysaa waxaad u adkaysanaysaa haddaad ilaahay xidhiidhkaagu fiican yahay ilaahay xidhiidhkaad la leedahay hadduu fiican yahay nebi muuse iyo nebi haaruun ilaahay wuxuu uhi fircawn u taga idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa weliba waxaa loo sheegay fircoon nin fudud inaanu ahayn nin kibre oo qooqay oo dadka laayabaa la yidhi u taga oo haddaa maxay samaynayaan ilaahay wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala idhab anta wa akhuuka biaayaati walaa taniya fii dikri idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa walaa taniya fii dikri aniga xuskayga uun ha ka daalina baa ilaahay yidhi aniguuna xusa idan haddaad rabto inaad guulaysato dacwadu guulaysato waa inaad qof daakira noqotaa qof cibaadadiisu hadday qofka cibaadadiisu badan tahay hadalkiisu qalbigaagu gelaya haddii kalena caqliguu gelaya caqligu de wuxuu iska noqdaa muxaadaro haqaafa oo inta la fahmo dee hadhowna aada iska tuurto laakiin waxaa qalbiga galaa qofka dhaqankiisay bedelaan waxa fudaydiya diinkan inaynu dadka u sheegno waxaa ka mid a inaad dadka khayrka la jeceshay inaad khayrka la jeceshay qofka aan cadaagiisa iyo bedelgiisu waxbixintiisu qofka aanay fiicnayni dacwadiisuna ma fiicnaato waxbixinta maxaynu ogahay waxbixinta xoolo qura maaha waqtigaagii iyo juhdigaagii iyo tamartaadii iyo xooggaagii iyo fikirkaagii baad bixinaysaa maxaad u bixinaysaa dadkaad khayrka la jeceshay qisaska ama qur-aanku suu nebiyullaahi nuux waxa ilaahay ka sheegayo ama nebi yuusuf waxa laga warramayo ama mu'minu aalu yaasiin qur-aanku wuxuu kaga warramayo qisaskaasoo dhan haddaad u fiirsato waxyaabahay wadaagaan waxaa ka mid a dad bay ahaayeen dadka khayrka la jecel nebi nuux isma odhanin 900 sannadood baa dadkan la hadlaysiiyo 50 iskaga tag adugu imise sano markaad la hadlaysaa baad iska tegi lahayd haddaad sanad iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 10 wadid oo cidiba ku dhagaysan weyda maxaad yeeli lahayd waar kuwani habaar bay qabaan inaga kaxeebaad odhan lahayd 10 sannadood baa buwadda waxba kama hayn bal u fiirsan nebiga 950 sannadood waday 950 sannadood ee weliba habeen iyo maalinba leylan wa nahaara habeen iyo maalinba waday ee weliba siran wa calana kor iyo hoosba u sheegayay waxay tilmaamaysaa dadku khayrka la rabay dadku jeclaa inaanay naar ku dhicin
u fiirso nebiyullaahi yuusuf waa la dulmiyey markaasuu addoon noqday markaasaa la sii dulmiyey markaasuu xabsi galay kuwii xabsiga ku riday baa isaga u baahday oo waxay yidhahdeen riyadii boqorkaa la rabaa in la fasiro muu odhanin ma inta xabsiga igu rideen baa weliba aniga ileedin wax noo fasir war naga taga maxaad adigu odhan lahayd hadduu nin iska kaa xidho oo xabsiga kugu haysto oo hadhowna ku yidhahdo waxtar baanu kaa doonaynayo dowladdeedu sidii ay u badbaadi lahayd noo sheeg se waxaad odhan lahayd amba 7 sannadood bidca siniin buu xidhnaa nebiyullaahi yuusuf haddana markii loo yimi wuxuu sheegay 15 sane soo socda dhaqaalaha waddankaas sidii loo badbaadin lahay ummaddaasi u noolaan kari lahayd iyagoo gaala ah buu wuxuu tijaabinayay bal in noloshooda lagu dadaalo oo diin loo sheego oo saasi loo sheego mu'minu aalu yaasiin ilaahay muxuu kaga warramayaa 3 rasuul meel loo diray oo la soo diiday oo nin muslim oo daaciyey maqlo soo cararay oo u yimi ninkaa xilku qaaday u fiirso aduu haddii 3 rasuul la diido ma istiri lahayd se waxaad odhan lahayd rusushiiba la aqbali waayo anigu maxaan ka doonaya aw hebel iyo aw hebel baabaa dadku dhegaysan waayeen anigu maxaan sheegayaa maya qof walba xilku sidiisa u saaray iyadoo 3 rasuul la diiday buu yimi isagoo le war hooya rususha raaca tanbaa isaga uu ah dacwadiisa waa rususha raaca cidaan waxba idinka ramin raaca way diideen bal ee way dileen siday culimmadu tilmaamayeen way dileen dabeetana ilaahay baa u naxariistay oo nicmaa la geliyey aakhiro markuu u kacay ayuu weli dadkii khayrka la jecel yahay oo muxuu leeyahay ilaahay qur-aanka waa ka tilmaamaya isagoo sii hadlaya maxaa aayaddu tilmaamaysa muxuu sheegay yaa layta qowmi yaclamuuna bima gafara lii rabbii wajacalanii alla jeclaan lahaayee buu leeyay inay tolkay ogaadaan sida ilaahay igu dembi dhaafay ee uu ii karaameeyey yacni iyana ha islaamaan oo ilaahay ha karaameeye isagoo dhintay buu weli dadka khayrka la jeceliyey idan waxa dacwada dadku ay u akrinayeen waa maxay xub الnaasi lilkhayr ama xub اlkhayri linnaas dadka oo ay khayrka la jecel yihiin dacwada naajixa waxaa lagu yaqaanaa markaasi in loo sabro oo loo dhabar adaygo oo aan marnaba la quusanin yaa ayuha aladiina aamanuu اصbiruu wasaabiruu waraabituu waاtaquu اllah lacalakum tuflixuun yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bالصabri wالصalaa واstaciinuu bالصabri wالصalaa wainaha lakabiira nusuustaasoo dhame waxay tilmaamaysaa in loo sabro inta badan bini aadamku waa indha ku garaadle wuxuu jecel yahay waxa uu sameeyo natiijadeeda inuu markiiba arko laakiin dunidan ilaahay baa maamula waktigu wax kasta u qorsheeye u qadarayna way dhacayaan adigunbaa deg deg kugu jira intaa dadka diinta ugu yeedho waxaa laga yaaba inay waxba aqbali waayaan laakiin waxaa suurtagala midhuhu goortay soo baxayaan adigu garan maysid mid yaroo adigu aada yasaysay oo aan kulaba buurayn oo aada qur-aanka u dhigtay oo wax u sheegto iska caruur ahaa aanad u fiirsana inay noqoto ilaahay gacanteeda ku dunida ku badbaadiyo tusaalayaal basiitaan idin siinaya shaafici soo iminka imaam weyn oo muslim oo dham yaqaano oo diin laga barto oo madhab dhan oo culammadu haysata maaha ma u malaynaysaa ninkii qur-aanka u dhigayay inuu islahaa shaafici buu noqon doonaa mise inan yaroo loo keenay oo qur-aanka u dhigayuunbuu arkay yani ilma caruuro qur-aan u dhigayuunbuu arkay macallinkii diinta u barayay waxaa laga yaabaa intooda badani markay wax u dhigayeen ila nin bisil markaa ma ahayne waxay u arkayeen qof yaroo muslimo ay wax barayaan laakiin waxaa laga yaabaa aakhiro inuu uga faa'iido bato dad badan oo kale ay wax u dhigeen oo aan midho ka tegin kaasi midhihii uu dhalay waxaa laga yaabaa kaad maanta wax bartay isagoo aan wax badan soo saarin kuu sii baro kiisa shanaad inuu dunida bedelo adigu ka shanaad siduu u ekaanaya miyaad garanaysaa miyaad soo odhanaysaa war dadaal ka shanaad baa dunida bedeli doonee
haddaad sii garanayso inuu ka shanaad ama ka lixaad ama ka tobnaad yahay ka dunida beddelaya maanta xoog baad ugu xidhxidhan lahayd ka yaraad wax u dhigayso waxaad odhan lahayd ha ka habsaamin waa ninkii maxay dunida ilaahay gacantiisa ku beddeli lahaye marka adigu garan maysid sidaa awgeed qofka muslimka ee daaciga ahi waa inuu sabraa natiijadana waa inuu ilaahay u daayaa ilaahay baad ka rajaynaysaa inuu waxaan midho ka dhaliyo aada wado goortuu ka dhalan doontana ilaahay baa og sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahy waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluh wاlmu'minuun wasaturadduuna ilaa caalimi اlgaybi waاshahaadati fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun war camal sameeya baa la yidhi alle iyo rasuulkiisa iyo dadka mu'minka arki doona waxaa samaysaan waxaanad ogsoonataa una ilaahay baa laguu soo celin doonaa rabbaana kaaga warrami doona wixii aada samayseen ayuha alaxiba warka badani wuu ismasaxaa dadkuna maskaxdoodu intay soo jeedaa ma dheera ma badna dii war badan lagu akriyo inta badan wixii uu qofku sheegayo unbaa ismasaxaa lakiin waxaan kusoo koobayaa dacwa markay tahay oo ah in diin la faafiyo qur-aanka iyo xadiidkuba waxay inoo tilmaamayaa mu'minka xil saaran inay tahy mu'minkuna lab iyo dhadig iyo caalim weyn iyo mid in yar garanaya ma kala leh mid walba intuu garanayaa saaran mid waliba diintan wuu faafin karaa qof qurana lama sugo saxaabadu hadday nebigoo qura sugayaan ma u malaynaysaa diintu inay intay gaadhi leh maya nin waliba isagaa isxilqaamay nebigu abuubakarba wuxuu sheegay abubakar markuu wax fahmay casharat almubashiriin inta u badan isagaa keenay isagaa isna diinta u sheegay oo nebiga u keenay isma odhan nebigu dadka haw sheegay de adigu nebiga iska daba socow nebiga sheegi doone laakiin isagaa intuu baxay usoo sheegay oo dabeetana saasay ku yimaadeen oo diinta ku garteen waxaan uga dan leeyahay qof waliba diintan wuu faafin karaa qof wal oo muslimaba diinta wuu faafin karaa kelmaddiisu ku faafin karaa dhaqankiisu ku faafin karaa xoolihiisu ku faafin karaa waktigiisu ku faafin karaa saaxiibtinimadiisu ku faafin karaa asaaliibu dacwa ma aha un intaad meel fadhiisato in dad laguu soo ururiyo aada muxaadaro u jeediso ama intaad meel fadhiisato inaad kitaab dhigto intaas ma aha dacwadu intaas waa in yaroo ka mid a ee dacwadu waa in diintan la qaado oo dadka la gaadhsiiyo sida dadka loo gaadhsiinayaana waa si aada u tiro badan wasaaishu aad bay u tiro badantay wax kastana way yeelan kartaa marka warkan waxaan kusoo koobayaa mafhuumkan qaldan ee ah anigu kitaab ma akriyo ama anigu ma muxaadarayn karo dee maxaan markaa diin dad gaadhsiin karaa kaas iska tuura xil isa saar oo garo qof xil saaray oo ilaahay saaray inaad tahay ilaahayna inaad la dhaqmayso o aada ajar ka rabtid idan dadka diinta waad gaadhsiin kartaa kuwa dashaad gaadhsiin kartaa kuwa tolka iyo qaraabada lataad gaadhsiin kartaa kuwa jaarka guriga kugu abaad gaadhsiin kartaa kuwa iskuulka iyo jaamacadda ku zumalada tiin baad gaadhsiin kartaa kuwa shaqada a wadaagtaan baad gaadhsiin kartaa bini aadamku si badan oo kala gedisan buu xidhiidh u leeyahy oo wax isugu tallaabin karaa dhaqankaaga iyo hantidaada iyo caqligaaga iyo waktigaaga diintaada wax ka sii